Haaland oo go'aankiisa ugu dambeeya ka qaadanaya Real Madrid. War cusub oo soo baxay. Sheekada u dhaxaysa Erling Haaland iyo Real Madrid weli ma soo afjarmin. Inkasta oo weeraryahanka reer Norway uu u muuqday mid si buuxda ugu xiran mashruuca Manchester City, haddana wararka ku saabsan inuu u wareegayo caasimadda Spain ayaa mar kale xoog u soo laabatay. Sida laga soo xigtay wariyaha Isbaanishka ah George Bitcon oo ka hadla barnaamijka Edis Marquee Madrugada, Haaland weli wuxuu qalbigiisa ku hayaa riyadiisa ahayd inuu xirto funaanada caddaanka ah ee Los Blancos, riyo aan weligiis qarintan iyo bilowgii xirfadiisa. Waxa arrintaas sii kicinaysa waa qodobka lagu xusay qandaraaskiisa ee lagu burburin karo. Qodobkan ayaa suurtagelinaya inuu ka tago Manchester City, iyadoo Pep Guardiola uusan awood u yeelan doonin inuu joojiyo. Lacagta saxda ah ee lagu burburin karo qandaraaskiisa lama oga, balse warbaahinta Spain ayaa sheegaysa in la burburin karo qandaraaskiisa xagaaga 2026 ama xitaa ka hor, iyadoo ku xiran xaalado gaar ah oo qandaraaskiisa ah. Florentino Perez ayaa la rumaysan yahay inuu Haaland u arko xidig ku habboon dhismaha koox cusub oo mustaqbalka Madrid ah, weeraryahan awood iyo dhamaystir leh oo si buuxda ugu habboon ujeedooyinka Yurub ee kooxda. Hase yeeshee arrintu ma fududa. George Bitcon wuxuu tilmaamay in xaaladda Haaland ay si toos ah ugu xiran tahay mustaqbalka Vinicius Jr. Ciyaaryahanka reer Brazil oo weli ku jira wadahadalo dheeri ah oo qandaraas kordhin ah ayaa qarka u saaran xiisad ka dhalatay beddelkii lagu sameeyay kulanka El Clasico ee ugu dambeeyay. Haddii uu go'aansado inuu tago, Real Madrid waxay heli lahayd boos weerar oo weyn iyo mushaar aad u sareeya oo bannaan, taas oo sahli karta imaatinka Haaland. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, meel walba aad naga daawanaysaan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay wararkii u dambeeyay kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.